dhaqanku iyo diintu waa wax lagu kala duwanaan karo inta badan bulshada caalamka ay ku kala duwan yihiin. Haddaba waxaanu leenahay haddii aan nahay Soomaali ciyaar dhaqameed soo jireen aynu ka dhaxalnay awoowayaasheenii hore. Haddaba ciyaarta halkan ka socota waa ciyaar dadweynaha Soomaaliyeed ay magacyo kala duwan u yaqaanaan. Haddaba dadka qaar ay u yaqaanaan ciyaarta la yiraahdo ool ama ool saa u taqaanid. ciyaar kal ilaaba ayaa maanta lagu sameeyay ee degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose. dhalinyaro badan ayaa ku ciyaaraysa in badan 10 sano ay ku ciyaari jireen halkaan. ciyaartan ayaa aad iyo aad u xiiso leh, qofkii wax yar uu ku jiro ayaa dhididkiisa keenaa si fudud. ciyaartan ayaa ah ciyaar aad iyo aad sidii kubadda waxba ay dhaamin. haddaba waxaan bulshada aan ka wareysanay ninkan ka waran ciyaartan iyo lanya ciyaartan ciyaar aad u soo leh waan in badan dhil shirnay wahal u kardaa ool aan naftay intaan ka dhangahay ilaa yaraanaysa dhil shiriyay mar alaala markay jaaris aan wala wasdeela marka wallahi billahi taala ciyaar soo leh wahal yaraa ool leeyahay dad ma ciyaar kale u kardeen laakiin aan waxa u karnaa ool hadda uu nahay kare ool leeyahay marka hadii aan ka warbahay waxa waanaaw lama keeyo kala dhogsida mar lamba ool suubsay langi ool kan sal oo hayay oo ma door mar ool darday la ka baday marka ool siday waan si hadii ka arshaysay wallahi billahi ool wax aan waxa dhahlay marka banoon maal gaal leh waan galaalay keenay ool hanu baday dhahlay was artay fiir hada dhashti suura hore leeyin lana sal bursay salka taaray kaas bursay sal taaray ool siday dhammaan reer Qoryoole iyo nawaaxiga intii ka nool waxa la ahaa in ma arne ciyaartii hoojiyaan hidaha iyo dhaqanka la nooleeyay gaalada wax ku inuu keen iska dhaafnay banoon ma karashirno una hadii wax ku dhul la keen marka waxa dhahlay dhammaan dadka hor dhil shireen hadan ay dhaafnay dhilin dad badan hor dhil shireen waxa shireen hada iska dhaafeen oo ma arne wax kale banoon iyo balaayo ka dooradeen marka waxa la dhalinyaro ay dhaafna hidaha iyo dhaqankii Soomaaliyeed mid kale hadan aan weydiiyay suu imaarta u arko ra'yigiisa inuu ciyaarta noocan ah ama hore inuu soo ciyaaray in kale ayaan ka wareysanay bal wuxuu naga jawaabay hay hore muu soo ciyaaray horta ma agay waxa ibrikab leeyahay belkay waan ka nool ahaa magaalada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose ciyaartan in badan saadeel shir aad aan u kardaa mid kale hadaan ay weydiinay asina asxaabta ciyaaraha kamid ah niyow magacaygu waa Cabdirashiid Ismaan waxaan ku noolaa degmada Qoryoole ciyaartan in badan aan soo ciyaari jiray anoo yaraanteeda waxaan ka soo bilaabay anoo 7 sano jir ilaa hadan ciyaar aad u faraxsanahay mid kale ayaan weydiinay wuxuu asiyana ku arko raay ahaan ama wuxuu ka qabo magacaygu waa Salmaan Saciid waxaan ku noolaa degmada Qoryoole ciyaartan aad baad u jecelahay ilaa yaraanteeda waan jeclaa hadan waan ciyaara mar waliba waan jecelahay waayo hidaha iyo dhaqanka hadii aniga aan nooleyn cid nooleysana ma jirto dhammaan asxaab waxaan leeyahay inaan gacmaha isqabsadaan hidaha iyo dhaqankeena aynu nooleyno dhaxalka awoowaheena weeye dhammaan garre guul ayaan leeyahay waa shaqal wacan asxaabay rashka xidig